wax ka dhiganayay dugsiga sare ee habka shaqo inamada ay yaryar oo xuquuqdooda si salmiya oo nabadgelyo u raadsanayay sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho ay mustaqbalkooda iyo aayahoodaba anfacaan ayaa waxa lagula kacay fawaxshinimo ah oo ay sameeyeen niman mas'uuliyiin oo uu ka mid yahay ama hormood ka ahaa gudoomiyaha degmada ee Qabri Bayax isaga iyo ilaaladiisu waxay inamada si wada kaca oo bareera oo aan ka bashalahayn xabad uga gufteen midna maanta lug baa la gooyo adisagu yaala midna calooshiisa banaanka taalo haddaba waxaan si xushmad leh ugu codsanaynaa madaxda deegaanka Soomaalida in arrinka foosho xun ee dhacay ee ay ogeyn maamulkii hore iyo dambiyadii uu ka geli jiray deegaanada in aan loo ogolaanin inay falka ay la baxaan nimankaasi oo saabsan waa in sharciga sida ugu dhaqsaha badan leh la hor keena iyaga oo kasban doona wixii ay u geysteen inamada yaryar ee